السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal marwal baa joogtaan isoo baadnoo maqlaysaan waxaad leenahay gmaal wanaagsan waxaan markaasi aad naga barateen xilligan oo kaleeto inaan markaasi idiin soo dayno barnaamijka falaaqaynta ciyaaraha ee radio olol haatan ugu soo dhawaada watahay dhegeystayaal maalin wanaagsan mar labaad meel walba joogtaan iyo su'aal baad noo maqlaysaanba waxaanu markaasina gudagalaynaa barnaamijka falaaqaynta ciyaaraha ee radio olol oo maanta aanu ku soo qaadanayno qodobada ay ka mid yihiin kooxda RB Leipzig iyo Atlanta oo u gudbay wareegga sideedamaadka ee UEFA Champions League kadib markii ay garaaceen Tottenham iyo Valencia labadii kooxood ba shalay yacni xalay waxaa meel baa la saarayo waxaanu sidoo kale tan soo qaadanaynaa kulanka weyn ee markaasi caawa la wada sugayo ee Liverpool iyo Atlantico Madrid sidoo kalena Borussia Dortmund iyo PSG ayaa caawa wada ciyaari doona waana kulamo waaweyn oo khatar weeyaan Van Dijk wuxuu ka hadlayaa kulankan weyn ee Atlantico Madrid iyo kooxda Liverpool buu ka hadlayaa wuxuuna markaasi yacni niyadda u dhisaya kooxda Liverpool wuxuu leeyahay meel baanu saari doonaa kooxda Atlantico Madrid wararkiisu baanu soo qaadan doonaa Simeone isaga laftarkiisu waa ka hadlay kulankan weyn ee Atlantico Madrid iyo kooxda Liverpool ay markaasi wada ciyaarayaan caawa waxaanu sidoo kale barnaamijka aanu ka marnay inaan soo qaadan doonaa Klopp ayaa xaqiijiyay inuu markaas soo laabtay xidiga ugu muhiimsan ee markaasi ka mid ah ragga ugu muhiimsan ee kooxda Liverpool ninka la yiraahdo Henderson inuu soo laabtay waliba kabtankii ah waxaana markaasi laga soo warinaya soo kaleeto Arsenal ayaa la geliyay baa lagu leeyahay karantiil markaasi sabab la xiriirta cudurka coronavirus-kii baa laga shakisan yahay oo nimanka Arsenal aha karantiil baa la geliyay maadaama madaxweynihii Olympiacos laga helay cudurka coronavirus-ka haddana ay ahaayeen kuwa la soo ciyaaray waliba Europa League la soo ciyaaray ay Olympiacos ka reebtay Arsenal يعني waxaa dhacday in markaas madaxweynuhu la kulmay ciyaartoyda kooxda Arsenal waxa leeyahay ama coronavirus-ka qaban baa leeyahay qodobadaas baa kamid ah kuwan maanta ku soo qaadanayno Barcelona waxay ka hadashay dhibaatada ka soo gaadhay in markaas garoonkeeda Camp Nou caawil ay ku ciyaar doonto taageero la'aan ay ku ciyaar doonto qodobadaas baa ugu muhiimsan kuwa maanta aanu ku soo qaadanayno barnaamijka balaanu fiirino kooxihii xalay markaasi laga badiyay iyo kuwii markaasi xalay markaasi badiyayba kooxdii RB Leipzig ayaa markaasi iska caysay wareegga sidamaadka UEFA Champions League kadib markii ay markaasi celis ahaanba ay labadii lugood ku wada garaaceen wareegga 16 ee markaasi kagana soo gudbeenba 4-0 bay kaga badiyeen kooxda Tottenham qaybta hore ee ciyaarta waxaa lagu kala maray markaasi 2 gool iyo eber ay ku hogaaminayso kooxda martida loo ahaa ee markaasi RB Leipzig daqiiqadii 10aad ee kooxda Leipzig ayaa hoggaan ku qabatay dheesha waxayna 1-0 ka dhigay ninka leedo Marcel Sabitzer waxaana goolkani ka caawiyay ka ahaa ninka leedo Tim Werner daqiiqadii 21aad kooxda reer Germany RB Leipzig ayaa dhalisay goolka labaad waxaana markaasi ciyaarta 2-0 ka dhigay ninka leedo Marcel Sabitzer kadib markii uu goolkani caawiyay ka ahaa saaxiibkiisa Angelino qaybta labaad ee markay dib la isku soo laabtay labada kooxood waxay sameeyeen fursado khatar ah oo ay iska dhalin karaan goolal laakiin maysan saacidin markaasi inay wax kale ay dhaliyaan laakiin 87 daqiiqo ciyaartu markay marayso RB Leipzig ayaa dhalisay goolkeeda saddexaad waxaana 3-0 ka dhigay oo markaasi goolka saddexaad kana Emil Forsberg ninka la yiraahdo ayaana goolka saddexaad u dhaliyay kooxda RB Leipzig ugu dambeyn ciyaartu waxay ku soo dhamaatay 3-0 oo ay kaga adkaatay kooxdani Leipzig kooxda Tottenham bay kaga adkaatay oo marti u ahayd garoonka Red Bull Arena waxaana kooxda reer Germany ay u gudubtay wareegga sideedamaadka ee tartanka Champions League kadib markii ay markaas celcelis ahaan ay kaga soo gudbeen Tottenham 4-0 dhinaca kalena kooxda Atlanta ayaa ka adkaatay Valencia oo kaga adkaatay 4-0 kulankii lugtii labaad ee wareegga 16 ee Champions League waxayna u gudubtay wareegga xiga ee markaasi 8 kadib markii celcelis ahaan ay kaga soo badiyeen 4 iyo waliba 8 ba ay kaga badiyeen walla ilaahay markii xalay nimankan la yiraahdo Valencia meel baa la saara ka waran 4-0 baa loo dhibayo yaa waxay noqotay wax aan inaba عادي هينو يعني وحال نيكل يراهدو يا إليسيتش عيانا مركز حالة كو عادريو 4 جول كدليي نما كان اللي يراهدو فرنسيا وني حالي دباتي بلا كل منبا بلانو فيرينا كو مركز waxay ahaayeen kulamadii ugu waaweynaa markaasi xalay ee maanta yani xalay ciyaareen horyaalka Champions League laga ciyaaray bay ahayd ku caawana bal hadii aanu fiirino Liverpool baa ugu weyno caawala wada sugaya Atletico Madrid la ciyaari doonta Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield caawa ku soo dhaweyn doonta Atletico Madrid oo ay ku balansan yihiin lugta labaad ee wareegga 16 ee Champions League iyadoo ciyaartii horeba ay ku soo kala baxeen 1-0 oo kooxda reer Spain ay ku soo guuleysatay safarkii Liverpool bishii hore ay ku tagtay garoonka la yiraahdo Wanda Metropolitano oo ay 9 bilood ka hor ku soo qaaday Champions League waxa kala soo laabatay niyad jab gool darro la'aan
yacni guuldarre bay kala soo laabatay iyadoo lagaga soo adkaaday hal iyo eber waxaana xaaladeeda caawa ay tahay ayaa ay qasab ku tahayba inay goolaysato iyadoo weliba markaasi iska ilaalinaysa in goolo laga dhaliyo oo aan markaasi rajadooda aysan xumaaninba garoonka anfield waxay liverpool markaasi u baahan tahay taageero ka badan sidii hore sidii ay ugu gacan sarrayn lahaydba naadiga dhibaatada badan ee atlantico madrid oo ciyaar markaasi adag kusoo bandhigi doonta garoonka anfield caawa waa si la rajaynaya ragga maskax adag weeyaan baa laleeyahay madax adag weeyaanoo meel baa loo dhaafsin kari weeyaan baa laleeyahay tobabaraha diego simoni waxa uu lugtii hore la yimid ciyaar ku dhisan difaac wadajir ayuu kusoo galay yaa oo markaasi hore u socodsiin kartaba kooxda yaa oo weliba xataa xakamaynaysa salah mani farmino robertson iyo arnold waa ragga ugu khatarsanee kooxda liverpool weeyaano xagga weerarka iyo xagga baalasha iyo ragga ka dhisan weeyaano wuxuu markaas sameeyey habqaabeed difaac ahaan oo uu markaas ku xakamaynayo salah farmino mani iyo ragga ay ka mid yihiin robertson iyo arnold waxaana qorshahaasi hirgalay oo qorshihiisa noocaasa waa uu hirgalay bilowga here markii uu ninka la yidhaahdo soul yacni goolka ka dhaliyay goolkaasoo keliya waa looga badiyaba liverpool mana jirto koox difaac ahaan ka wanaagsan kooxda atlantico madrid qaaradda yurub oo dhanba sababtoo ah 90 daqiiqoodba waxay ku jiraan hanaanka ay ku ilaashadaan goolkooda waxayna ka mid yihiin kooxaha golasha ugu yar laga dhaliyey waxaana tani ay caqabad ku tahay clob oo u baahan inuu helo qaabka ugu dhalin lahaa bal kuwani gool ee madaxa adag leh alexander arnold ayaa ahaa ciyaartooygii suurtageliyey jabkii ku dhacay barcelona goolkii koornaha ahaa sida mucjisela uu usoo qaaday oo usoo qaaday ninka la yihahdo origi oo aan ciidba la joogin oo goolkana sidaa fudud oo uga dhaliyay kooxda baarka yaa waxauna uu taam u yahay kulanka caawa isagoo markaasi caafimaad qaba oo wax dhibaato aan haysan baasha kalena waxaa markaasi ka taagan ninka robertson isaga laftarkiisu halis ah oo ciyaartiisu haysan innaba caadi ahayn baana markaasi ka midoo calaya xasan ragga ugu khatarsanaa kooxda liverpool way taamba u yihiin ninka la yihahdo henson waa soo laabtay marka waxay noqon doontaa ciyaar adagoo shub ah ciyaartu waxay soo geli doontaa 5 saaxiibinimo saacadda geeska afrika garoonkana waa anfield stadium kolleyba waa loo fasaxay taageerayaashu inay daawadaan kulankan corono isagoo caqabad kuma noqon kulankana weyn bal haddii aanu markaasi ka sheekayno labadani kooxood yaa balayrinta usoo laabtay iyo waxyaabahoodii iyo kuxa ka cusubba labadani kooxood haddii aanu ka hadalno liverpool waxay dib ugu soo laabatay iyo usoo laabtay aan dhehe jordan henson oo 4 ciyaarood uu ka maqnaa ay ku dhibaatootay liverpool yacni maraduna ka dhacday tobabaraha club waxa uu filayaa inuu baasha bidix kusoo bilaabo andre ninka la yihahdo robertson oo waqtigii horeba yaa markaasi laga saaray ciyaartii balmond oo uu dhaawac fudud markaas soo gaaray ha yeeshee waxa aan joogin golhayaha alison baka oo tababarka ku dhaawacmay waxaana kusoo bilaaban doona ninka layihahdo andrian shakiri iyo ninka layihahdo clayn ayaana liverpool ka maqnaanaya dhammaan ciyaartooyda kalena waa tam sidaas baana ka cusub liverpool sidii omani maxamed salax oo kulankii barmod soo dhaliyey min gool ayaana hogaamin doona aafka hore sidoo kalena saalax ayaa sameeyey rikoor weerar ah oo uu noqday ciyaartooygii ugu horreeyey ee liverpool ah oo 3 sannadood oo isku xiga dhaliyay 20 gool iyo wax ka badan tan iyo markii uu michael owen sameeyey sidan oo kaleeto sannadihii u dhexeeyey 2000 iyo 2003diiba dhinaca atlantico madrid waxaa soo laabtay thomas lema iyo ninka la yihahdo tripia ha yeeshee alvaro morata ayaa shakala gelinaya waxaase beddelkiisa ay u diyaarsan diego costa marka shaxda macquulka bal liverpool ay kusoo geli karto waa andrian arnold gomez fondage robertson henson fabino wijnaldum salax famino iyo mani ayay kusoo geli karaan baa la leeyahay marka ragga liverpool kolley caawa qasab bay ku tahay inay atlantico madrid meel saaraan yaa nimanka madax cadkana waa la ciyaarayaan shubka ah way la ciyaarayaan laakiin ogsoonow garoonka anfield waa wax aan indhaba caadi ahayno yacni kaa yaabinay muuqaal ahaantiisaba yaa kaa yaabina weeyaan waxaan markaan kula wadaagayaa ninka la yihahdo ferdinand iyo peter croch ayaa markaasi ka hadlay kulankani weyn ee atlantico madrid iyo liverpool ay caawa wada ciyaari doonaan waxayna labaduba ay u saadaaliyeen kooxda liverpool caawa inay kasoo gudbi doonto kuwaan dhaguhu xiran yihiin ee atlantico madrid sababtana waxay leeyihiin atlantico madrid waa koox adag oo shub ah oo khatar ah laakiin liverpool oo aan naqaano yaa yacni anfieldna ku ciyaarayso waanu saadaalin karin ba in laga badinayo caawa oo yacni la reebayo waa saadaalintii ferdinand iyo peter croch marka raggaas weeyaano saadaalintooda waa sidaas weliba waxay leeyihiin waxaanu sidaa u saadaalinaynaa raggii waaweyn oo khatarta ahaa oo xataa watay laacibka adduunka leonel messi watay ayay meel saareen oo xataa natiijo waxay kaga badiyeen 4 eber ayagoo 3 iyo weliba eber lagu soo badiyey waxayna noqonaysaa bay ku leeyihiinoo natiijo yacni aanu sugayno oo ah in kooxda liverpool ay soo bixi doonto atlanticadana haba dadaashee maradu ka dhici doonto waan arki doonaa bal haddii maradu ka dhacdo iyo haddii kaletaba marka kulanku waa sidaas
nimankan yidhaahdo ee atlantica madrid shaxdooda waxay noqon kartaa oblak tripia ezevich fleb iyo ren olodi iyo nicolada sol neges iyo barty coke iyo felix coria iyo morota ayay kusoo geli karaan baa laisleeyahay waa shaxda macquulka ay kooxda atlantico madrid ay kusoo geli karto markaanu aragno bal liverpool caawa kolley hadday soo gudbaan wax weyn oo khatar ay u noqon doontaa raggii yacni premier league ka dheelayay waa ku bilaabato tottenham waa hudaysay waxaana sugi doonaaba inay kuwo kale ay harhaari doonaan amaseba ay soo bixi doonaan oo yacni shub iska soo dhigi doonaan waayahay dhanka kaleeto haddii aanu fiirino kulanka xiga waa kulanka amase kulanka isaguna isla waqtigaa soo geli doona waa kulanka b s g brescia darmon ay wada ciyaarayaan baris german ayaana lugta hore lagaga soo adkaaday 2-1 oo garoonkeeda bactis princes oo aanay wax taageerayaala ay joogin bayna ku martigelinaysaa brescia darmon lugta labaad ee wareegga 16 champions league waxayna u baahan tahay inay la timaado gool weyn oo keliya niyadda ciyaartooyda markaasi taatikada taageerayaashaba ku dhisan maadaama dhiirigelintii jamaahiirta iyo weliba qayladihii ay ku yacni ay ku heli lahaayeen niyadda ay meesha ka maqan tahay keliya inay taageerayaasha ama aan dhehe yacni balaayiriinta iyo weliba coachka inay hadlaan yacni dhiirigelinta noocaasana inay helaan mooyaane ma helayaan dhiirigelintii ay taageerayaasha ku daawan lahaayeen kulankanina wuxuu ka mid yahay kulamada albaabada la iskugu xiran yahay oo albaabadu xiran yahay oo la ciyaarayo ayuu ka mid yahay kalob baanu ka maqlaynay ninka leedo yacni beb guardiola oo ka hadlay arrintaan arkayna wuxuu leeyahay warboodhigan la ciyaaraya isagoo aysan yacni sabotaska aysan joogin ama taageeraysa aysan joogin arnagada iyo bahalkaan ugu dhibin inuu leeyahay ninka la yidhaahdo beb guardiola goolka madiga uu dhaliyay neymar ayaa markaasi waxaa ka damiyey ninka la yidhaahdo halen ayaana 2 gool oo qurux badan u siixay kooxda darmon waa kulankii hore weeyaan goolka waxaa ku hormartay kooxda baris german waxaana 2 gool ka daba keenay halen kuwaasoo siiyey faa'iido iyo niyadda wanaagsan ee ciyaarta caawa ay ku imaanayaanoo niyad wanaagsan bay ku imaanayaan brescia darmon weliba xataa 2 niyad ba ku imaanayaanoo kulankii hore waa kana way uga soo badiyeen garoonkooda caawana garoonka waxaa lagu ciyaaraya brescia darmon marka waxay noqon waxaan dhehe lugta hore waxaa lagu soo ciyaaray brescia darmon baa lagu soo ciyaaray garoonkeeda caawana waxaa lagu ciyaarayaa kan paris saint german baa lagu ciyaarayaayo kolley waxay noqon doontaa garoon taageerala-aana ayuu noqon doonaa waayahay wuxuuna markaasi aanu fiirinaba labadani kooxood waxaa ka cusub 5 saac habeenimo ayuu kulanka soo geli doonaa waxaana lagu ciyaaraya garoonka bactis princes ee kooxda paris german ay ku ciyaarto b s g waxaa markaasi ka baaqday kulankii jimcihii ay la dheeli lahayd strobot sabab la xiriirta cabsida coronaviruska baana loo xiray kulankaasi waxaana ciyaartan kusoo laabanaya iyadoona markaasi toddobaadka dhammaystiran soo nastay bayna kusoo laabanayaan laakiin waxaa ganax kaga maqan marco vrati iyo thomas moner oo min 2 kaaroo dignina haysta tiago silva iyo ninka la yidhahdo colin dagba ayaana shaki ku jira inay markaasi dheeli doonaan inkastoo loo badinayo inay ciyaari doonaan maadaama markaasi jugaha ay qabaan aysan waaweyneyn weeraryahanka clin bebe ayaana cabsi geliyey taageerayaasha iyo macalinkii markii uu sagay tababarkii isniintii islamarkaana laga baaray xanuunka coronaviruskiiba isagoo hindhisayo madaxu xanuunaya la arkay markaasaa layidhi hindhisadii coronaviruska mayba tahayba iyo madax xanuunkan meesha la geeyo waa la baaray ninka coronaviruska laga baaray ha yeeshee lama huba inuu ciyaari doono caawa waxaana taama in neymar iyo angel dimaria iyo halka ay ciyaari doonaan ay kasoo muuqan doonaan halka waxa weeyaan in bebe uu kusoo bilaaban karayo la rajaynayo waa sida macquulkaaba kooxda reer germany brescia darmon waxaa ciyaartan ka maqan marcos ros iyo thomas deleni oo dhaawaca waxaana la filayaa in booskooda ay xoojin doonaan yaa ninka la yidhaahdo febre iyo oo bandhig fiican sameeyey kulamadii hore ay soo ciyaareen marka shaxda macquulkaayo ay kusoo geli karto kuwaani paris saint german ah waxay kala tahayba navas iyo carl silva iyo kimpepe bernard iyo gueye iyo marquinhos iyo pedro dimaria mpepe neymar raggaasiba macquul ay tahay inay kusoo galaan kuwaani paris saint german ah waana labada kulan ee waaweynkayo caawa la wada sugayo ee ah kooxda liverpool caawa la ciyaaraysa atlantico madrid waa kulan weyn oo khatar ah waxaana lagu ciyaaraya garoonka weyn ee markaasi anfield aanu aragna wixii ka soo baxa baris german brescia darmon bay la ciyaaraysaa oo kulankii hore looga soo badiyey 2 gool iyo gool caawana garoonkeeda ku ciyaaraysaa bariso kolley maradu amaba ka dhacdaaba marka kulamadii ugu waaweynaana kuwaas bay ahaayeen oo caawa markaasi jiri doona bandaj baa ka hadlay kulankaani liverpool iyo atlantico madrid waxaana uu leeyahay fursad markaasi maanan siinin buu leeyahay kooxda barcelona ay ku ciyaarto waxaana ku ciyaari doonaa buu leeyahay kulankan isla sidaas oo kaleeta baanu ku ciyaari doonayo waxaan rajaynayaa inaan badino kulankan oo aan ciyaarno kubad wanaagsan laakiin markii ugu horreysay waa inaanu soo bandhigno xamaasad tii hore tii ka daran waa inaan soo bandhignaa buu ku leeyahay qof walba waa inuu ciyaaro doorkiisa
yaa min daqiiqada ugu horeysa ilaa daqiiqada ugu dambeysaba waa inaanu wax aan nahay soo sheegnaa buu ku leeyahay atlantico madrid si xoogan ayay markaasi u dagaalami doonaan sababtoo ah waa koox fiican buu leeyahay waxayna ka mid tahay kooxaha ugu fiican ee markaasi habqaabeed ciyaareedkooda lala yaabo waxayna nagu abuuri karaan buu ku leeyahay dhibaatooyin weerarada dhanka balanuuska ilaalina buu leeyahay oo kolleyana isdhigan buu leeyahay ninka ledo fandaj simeoni bal haddii aanu fiirino isagana wuxuu leeyahay diego simon ayaa markaas sare u qaaday heerka dareenka taageerayaasha liverpool isagoona carabka ku adkeeyey in kooxdiisa atlantico madrid ay awood u leedahay inay mar kale la ciyaarto liverpool kulanka adag ee markaasi lugta hore champions yani ka mid ah ya yaalka diego simon ayaa waxaa waraysi uu bixiyey markaasi kahor kulanka caawa waxa uu ku yidhi ha waxaan u malaynayaa inay markaasi ka mid tahay buu ku leeyahay tayadeenna waa hanti aad u adag oo aan haysanno waa inaanu markaasi had iyo jeer samayno wixii aan markaasi sida wanaagsan aan u samayn jirnay buu ku leeyahay yacni dhaga adeegan iyo ciyaarahan shubka ah iyo weliba adkaantan aan ku ciyaarno waa qayb ka mid uu ku leeyahay habqaabeedkeena caawana sidaas baanu doonaynaa buu ku leeyahayo sidoo kale wuxuu ka hadlayba haddii coronaviruska dartiis yaa oo laga baqayo kulankan taageera la-aan ay kooxda liverpool kula ciyaari lahayd marka wuxuu leeyahay war anigu ma jeclaan lahayn buu leeyahay taageerayaal inay noqdaan kooxda liverpool waxaanu jeclahay taageerayaasha ay joogaan inaan ka badiyo kuwan yaa taageer la-aan haygu dhigin buu ku leeyahay haddii kale hadhowey waxay leeyihiin yacni taageerayaasha waa naga maqnaa marka waxaan u rajeynayaa buu ku leeyahay inaan loo diidin kolleyba kulankaani taageerayaashu waa kasoo qaybgeli doonaan oo waa daawan doonaan oo kulamada ma ka mid ahaan yacni iyagoo taageer la-aana markaasi la daawan doono waxaana kulamadaasi ka mid ah kulanka baris german ay borussia dortmund la ciyaarayso barcelona napoli la ciyaaraysa kulamadaas baa ka mid a kulamada markaasi albaabada la iskugu xiri doono yacni waxa weeyaan taageerayaal aysan kasoo qaybgeli doonin waayahay markaani waxaanu fiirinaynaa arsenal ayaa karantiin la geliyay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta arsenal ayaa dhammaantood karantiin la geliyey waxayna markaasi laga horjoogsaday inay wax kulamo ah la dheelaan in muddaa ilaa inta markaasi laga ogaanayo inay markaasi ka caafimaad qabaan cudurka coronaviruska oo looga shakisan yahay inuu usoo gudbiyey mulkiilaha naadiga olympiacos ee ninka la yihahdo ya marenikis oo toddobaadkii hore ay la kulmeen garoonka itadi stadium ay kula kulmeen ha yeeshee shalay markaasi la shaaciyey inuu markaasi xanuunkan qabo arsenal ayaana olympiacos la ciyaaray kulan arsenal ayaana olympiacos la ciyaartay kulan ka tirsan europa leaga oo lagaga adkaaday 2 gool iyo gool laguna reebayba ha yeeshee waxay soo baxday in markaasi uu dhashayba yaa uu qabay yacni madaxweynihii inuu qabay xanuunkaas baa soo baxday inkastoo aan la ogeyn haddii uu kulankan ama kulankii emirates joogay yacni waxa weeye lagu leeyahay xaaladaasi kulankii manchester city iyo arsenal caawa ayaa la baajiyey cabsida soo wajahday arsenal kadibkeed laakiin waxaa kaloo la filayaa in ciyaaraha toddobaadka soo aadan ay gaanaas laga baajiyay laftirkoodo yacni waxaa la leeyahay ma ninkaas mulkiilihii baa laga helay coronaviruska aada la soo ciyaarteen maybe inaad u tagteen oo lasoo kulanteenba wax aad la ciyaaraysaan yacni city ma jirtaa la yidhiyo 2 toddobaadba karantiin baa laidin gelinayaa yaa raggaas baana la baarayaayo xanuunka coronaviruskiiba adduunka qariba arkaasa adduunka waa qariba coronaviruskii dhowr ka tirsan ciyaartooyda arsenal ayaana si gaara meel loogu karantiilay iyadoo markaasi looga shakisan yahay laakiin lagama shakin yaa lama sheegin haddii laga helay astaamaha iyo calaamadaha lagu garto xanuunkani marka dhowr ciyaartooy baana si gaara loo karantiilo oo meel gaara la geliyey war-saxaafadeedka ay arsenal soo saartay ayaa ku sheegtay inay ogaatay in tiro ka mida ciyaartooydeeda ay la kulmeen evangelis ninka la yihahdo marinakis markii uu yimid emiratis february 27deedii si gaar ahna ay markaasi yaa ay u karantiishayba ciyaaryahanadaas oo dhanba waxay aqoonsatay tiro ciyaartooy ah oo arsenal oo la kulmay mulkiilaha olympiacos markii ay dhammaatay ciyaartaasi ayay tiri arsenal kuwii la kulmay ayaana karantiin la geliyo dhammaan kooxdii o dhanba waaba la jojiyeyba kooxdu waxaa kaloo ay sheegtay in muddo 14 maalmooda ay markaasi takori doonaanba ciyaaryahanadeeda oo ay raaci doonaan naadiyada ay markaasi dowladaha u dejisay yaa ama nidaamyada ay markaasi dowladda u dejisay ee karantiilka dadka laga helo xanuunka waxaana dhinaca kaleba jamaahiirta niyadda markaasi loogu qaboojiyey inay aad u hooseyso khatartu talooyinka caafimaad ee aan helnay waxa ay muujinayaan in halista ay ugu jiraan inuu ku dhaco coronavirusku yaa ay aad u hooseyso si kastaba waxaanu si adag u raacaynaa tilmaamaha dowladda ee markaasi soo jeedinta in qof kasta oo la kulma shaksi yaa adugu wax walba cunugka coronaviruskaba qaab walba on lagu amray baanu samayn doonaa bay leeyihiin arsenal ciyaartooyda muddo 14 maalmooda ayay markaasi guryahooda ku jirayaan 4 shaqaalaha arsenal ah ayaana markaasi ag fadhiya master marinaki ayaana sidoo kale guryahooda kusoo dhamaysan doona 14 maalmood ayana tiri arsenal in yar kadib qoraalka arsenal maamulka premier league ayaa qoraal soo saaray wuxuuna ku sheegay
in la baajiyey ciyaartii arsenal iyo city si markaasi badqabka ciyaaryahanada loo sugo marka waa kaasoo kulankii aad sugaysay ee arsenal iyo man city waa baaqday coronaviruska baa laga baqaya ragga inay ku hindhisaan yaa raggana starlinka la dhahayo iyo dabreynahan iyo kolleyba in kastoo maqanya ninka yaa laakiin waxaa la filayaaba in markaasi kulanka uu baaqdo waa la baajiyey kulankii arsenal iyo city marka warbixinada kale ugu muhiimsan maanta waxaa ka mid ah barcelona waxay shaacisay oo ka hadashay taageere la-aanta ay ku ciyaari doonto kulanka soo asbuuca dambe ee la ciyaari doono napoli iyo kooxda barcelona saacado kadib markii ay soo baxday go-aanka taageerayaasha lagaga mamnuucay ciyaarta barcelona ee garoonkeeda camno ay ku martigelin doonto kooxda napoli lugta labaad ee wareega 16 champions league madaxweynaha kooxda ee reer spain jose maria bartamo ayaa markaasi toddobaadka ayaa daboolka ka qaaday khasaare dhaqaale oo kooxdiisa soo gaari doonta taageerayaasha laga joojiyay in kulankaasi garoonka soo galaan xanuunka coronaviruska ee dunida faraha baas ku haya ayaana heegan geliyey ayaa caalamka oo dhanba waxaana albaabada la iskugu dhuftay tartamo badan oo gebi ahaanba la joojiyey sida horyaalka kubadda cagta talyaaniga halka spainna muddo 2 asbuuca garoomo badan yacni garoomo maran lagu ciyaari doono kulamada champions league ayaana qaar badan laga shaaciyey in garoomo maran lagu ciyaari doono kulamada champions league aan dhehe ayaana qaar badan la sheegay in lagu ciyaari doono ayagoo maran kuwo kalena waxaa loo sugayaa ilaa markaasi daqiiqadaha ugu dambeeya haddii laga xayirayo jamaahiirta iyo haddii loo ogolaanayaba ciyaar toddobaadkan dambe ee barcelona garoonka camno ay kula ciyaari doonto napoli oo lugtii hore 1-1 ay kusoo kala baxeen ayaana ka mid ah kulamada jamaahiirta looga joojiyey inay soo galaan garoonka waxaana naadiga reer spain uu markiiba soo bandhigay khasaaraha dhinaca dakhliga ee kooxda soo gaari doona xayiraada taageerayaasha laga saaray darteed madaxweynaha barcelona bartamo ayaana markaasi ayaana u waramay sacodo yani warbaahinta la yihahdo barcelona ayaana wuxuu yidhi dabcan waxaa jiraya khasaare dhaqaale keliya ma ahan barcelona laakiin koox kasta oo ciyaaraysa garoon albaabadu xiran yihiin khasaara soo gaaraya buu leeyahay waa qof walba yani dhibaatadiisa wayaan ugu leeyahay lacagtuna waa qodobka labaad waxaan ka soo horeyna caafimaadka waa ka soo horeeya lacagto barcelona waxay khasaari doontaa ilaa 6 milyan oo euro ayay khasaari doontaa buu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay lacagta waxaa ka muhiimsan caafimaadka madaxweynaha bartamo waxa uu sheegay intani xubnaha kooxda ay markaasi murugo gelinayso sidoo kalena taageerayaasha kubadda cagta ee adduunka oo dhanna ay murugo gelinayso laakiin dhexda lagaga jiri doono marxalad gaara yacni wax walba oo kaba noqon doonaa buu leeyahay marka taageerayaasha barcelona iyo weliba madaxweynihiina waa hadleen oo waxay leeyihin dhaqaale xumana soo gaari doontaa taageerayaashuna waxay ka xun yihiinba in kulankii ay napoli daawan lahayeen yacni saas ay ku dhacdo aysan daawan doonin markani waxaanu markaasi fiirinaynaa tababaraha kooxda manchester city pep guardiola ayaa muujiyey fikrad gebi ahaanba ka duwan tababarayaasha kale ee kubadda cagta sabab la xiriirta cudurka coronaviruska saameynta xun uu ku yeelanayo ciyaaraha adduunka pep guardiola ayaa aaminsan haddii uu markaasi sii dheeraado waqtiga garoomada maran lagu ciyaarayo in markaasi ay ka fiican tahayba in gebi ahaanba meesha laga saaro kulamada markaasi hasan xilciyaareedka ee kubadda cagta oo dhanba la joojiyaba xuley maxaannu ka dheelinaa ka daawanaynaa hooy ibasaar ibas soo celi balad maqlaysaa iyo garoonka dhanba waxaasaad ka maqlaysaa meeshii taageerashaad ka maqli jirtay ee codka weyn yacni iyo xamaasadda aad maqli jirtay hey ya bas iyo waxaasaad maqlaysaaba marka wuxuu leeyahay waxaasoo kale intaan maqli lahayn ciyaarta dhan bay la joojiyaa nooga muhiimsan buu ku leeyahay pep guardiola ayaana ku dooday in haddii la doonayo in markaasi filim ama riwaayad lagu dhigo goobaha tartamada in aan qofna markaasi wax jelnina samaynin haddii aynu dadka ka soo xaadirin yacni filim haddii la jilayo ama riwaayad la jilayaba yaa meelna la doonaya in lagu sameeyo laakiin dadna aysan joogin dadka doonaya inay filimka jilaan ama riwaayadda sameeyaan yani waxay leeyihin yaa riwaayadda u jilna ama filimka u samaynaaba dadba ma joogaan meeshe marka taasoo kale la mid tahay buu leeyahay annaga hana waa lanoo leeyahay baalkan kubadda nagu waalaysaan oodna leedihin ciyaara cidna mana daawanayso xageed noo wadan buu leeyahay waxay la macno tahay buu ku leeyahay dad doonaya inay filim jilaan oo aysan cidna daawanayn sidoo kalena yacni waxay la mid tahay mid doonaya riwaayad inuu jilo oo raba inuu riwaayad dad ka qosliyo oo dad ka qoslin lahaaba aysan jooginba taasay la mid tahay buu leeyahay waayahay wararka maanta sportska ugu waaweynaa kuwaas baa ka mid ahaa marka waxaanu markaanu fiirinaynaa wararka kaleeto ugu waaweyn ee maanta sportiska ayaanu markaas fiirinaynaa markaasi robertson ayaa markaasi faahfaahiyey xaaladda kooxda liverpool ay samayn karto caawa difaaca bidixii kooxda liverpool ninkaleedo andy robertson ayaana sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay kooxdiisa u baahan tahay inay samayso kulanka ay caawa martigelin doonto atlantico madrid si ay ugu guulaysato islamarkaana ay markaasi ugu gudbi kartaba wareegga sideednamaadka ee tartanka champions leaga
kooxda ka dhisan ingiriiska ayaana ciyaartii hore ee ka dhacday Spain waxaa laga soo adkaaday 1-0 laakiin caawa ay markaasi waxay joogaan garoonkooda Anfield oo ay ku diyaarsan yihiin taageerayaashoodii xamaasadda badnaa kuwaasoo sidii looga bartayba dhiirigelin iyo niyad-dhis iyo qayle aan joogsi kala lahaynba sameeya xilliyada ay kooxaha waaweyn arkaan oo kale sidii ay u argagixiyeen oo kale kooxda Barcelona oo kaleetaba yaa heer ay ka gaartay kooxda Barcelona yaa qayladii lagu qaylinayay ma taageerayaasha fiiriyaan ma kubaddi bay ciyaaraan reer Barca waxaa la arkayay taageerayaasha u fiirinaya ayagoo taageeraysa u fiirinaya Robertson cunuga yarkaayo Arnold la yidhaahdo dhag korrada iska soo siiyo origi ka dhaliya ayagoo sii jeejeedo taageerayaasha fiirinaya ay ka yaabanay waxay dhahayeen war waxaan maxay sheegayaan yaa meeshii oo dhan waa isla guduudan tahay meeshii oo dhan waa isla guduudan tahay waa la qaylinayaa meeshii oo dhan ba wada qaylo waana la isla guduudan yahay markaasaa yacni madaxii baa ku xanuunaya waa sidaa dareemaysa yacni adigoo halka ka daawanaya baad madaxa ku wareeraya leedahay war waxaana maxay ahaayeen marka reer Barcelona ayaanta waa laga inkaar galabsadayaa waa laga inkaar galabsadayo heer ay ka gaartayba inay seexdaan oo ku ciyaartoo dhanba ka seexdaanba yaa taasoo sababtayba in koorna si degdega cunuga yarka ay hadda soo yacni waryarka ah inuu rekoorna degdeg inta uu soo qaado looga dhaliyo kooxda Barca saasna ay kaga hartaba tartankii oo dhan habeenkaas maxay habeen wuxun u ahayd yaa habeenka maxay habeen wuxun u ahayd nimanka la yiraahdo Barcelona yaa marka kuwani marka waxay leeyihiin sidii oo kale ayaan doonaynaa maalin kale ayaanu markaasi u jeesan doonaa sida khamiistii laakiin waqtigan oo kale waxaan dareenkaygu ku wajahaya in aanu isku dayno inaanu gaarno wareegga sidamaadka tartanka oo aanu markaas wax wanaagsan ka samayno waxaanu rajaynaynaa inaanu sii wadi doono ayuu raaciyey nin kale Robertson wuxuu dhaawac fudud ka soo gaaray ciyaartii kooxdiisa farqiga markaasi kaga badisay dirqiga kaga badisay Bournemouth sabtidii kulanka waxaana markaan diyaar u yahay in kooxdiisa uu markaasi u dagaal galo guul ay ka gaadho Atletico Madrid waxaana uu yidhi yacni xaqiiqadii way fiican tahay tan iyo markaasi fasaxii jilaalka fiicna waxaan markaasi dareemay caafimaad buu ku leeyahayoo calay xaasil caawa diyaar baan u helay tababarkii jimcihii waxaan xoogaa wax ka noqday muruqa waxaana markaas hadda aan u malaynayaa inaan toosanahayo okay baan ahay oo aan kulanka ka qayb qaadan karo taxadarna waxaan u leeyahay inaan kulankan qayb ka qaado laacibka reer Scotland waxa kale uu markaas sharaxaad ka bixiyay waxay kooxdiisa Liverpool u baahan tahay inay markaasi bedesho qaabka ay kula dheeshay Atletico Madrid ciyaarta hore yaa si ay markaasi u gudbi karto wareegga xiga ee markaas wuxuuna yidhi markii aynu halkaas joognay goolka maanaanu toogan buu leeyahay haddii aanu mar kale markaas sidaas samayno yaa meel bana la saari doonaa buu leeyahay annaga ayaana kubad haysashada badnayn waa inaanu abuurno fursado oo aanu ka faa'iidaysano marka aanu goolka hor joogsano waa inaanu darbadda laadno waa inaanu goolka laadnaa ogsoonowna waxyaabihii badanaa sahlay kooxda Liverpool inay wax badan ahaato koox shuba yacni khatara laga baqo waxay ahayd yacni browniga darbadooyinka ay sameynayeen marna Firmino mar Robertson mar yacni Henderson yacni Arnoldka Mane rag waxay ahaan wax kala yacni oo browniga darbadinayo goolkuba ay yaabayaan goolkiibaha uu ku jiro uu leeyahay abay ka dhalan doontaa yaa saddexdan waaba badaadsi midan yaa ninka waxaa ka mid ah Fabinho oo kale iyo waa rag khatarta ay darbadda xoogan ee kooxda Liverpool ku jira wuxuu leeyahay ninka Robertson kulankii hore waxaana dilay waxay ahayd uu leeyahay yacni fursadaha aanu helno maanan darbadinayno maanan laadin tiyo kale haddaanu samaynana meel baana la saari doonaa buu leeyahay ninka la yidhahdo Robertson waxyaabaha kale ee maanta aanu markaasi sportiga kusoo qaadanayno waxaa markaasi ka mid ah ninka la yidhaahdo Pep Guardiola wuxuu ka hadlayaa xaaladda markaasi haysata De Bruyne iyo ninka la yidhahdo Aguero macalinka reer Spain ee kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaana shir jaraa'idu markaasi ka soo muuqday wuxuu kaga hadlay xaaladda dhaawacyada ee xidigaha Kevin De Bruyne iyo Sergio Aguero Pep Guardiola ayaana hadlay xaaladda badan oo qusaysa kooxdiisa ka hadlay ka hor kulanka ay Real Madrid wajihi doonaan lugta labaad ee wareegga 16 ee Champions League isbuuca soo aadan Manchester City ayaana la kulantay dhaawacyo badan xilliyadii la soo dhaafay gaar ahaan saddexda xidig ee ugu muhiimsan ee kooxda De Bruyne Aguero iyo Leroy Sane haddaba Pep Guardiola ayaana markaasi wareysi u bixiyey shirkiisa jaraa'id wuxuu markaasi ka soo muuqday wuxuu kaga hadlay xaaladda saddexdan xidig wuxuuna yidhi Kevin De Bruyne ayuu u fiican yahay buu yidhi waxaan uu tababarka nala samaynayaa tan iyo shalay buu nala sameeyey Sergio Aguero waa uu fiican yahay sidoo kale Leroy Sane wuxuu soo fiicnaanayaa buu leeyahay waana ku farxsannahay inaanu nala joogo waqtiyadan oo kale yacni dhammaantood way fiican yihiin buu leeyahayo I think inay markaasi ka qayb qaadan doonaan kulanka soo socda waa sida uu leeyahay Pep Guardiola bixinadii maanta ugu muhiimsanaa ee maanta sportska aanu ku soo qaadanayna kuwaasa ka mid ahayo laakiin kulanka weyn ee caawa la sugayo waa kulanka kooxda Liverpool iyo Atletico Madrid wala Atletico Madrid caawa waa loo yaaba waa sida la leeyahay caawa waa loo yaaba kula ragii waaweynaa ee khatarta ahaa
ee kubadda ka fadhiisay sida Rio Ferdinand oo kale iyo ninka la yidhahdo Peter Crouch oo kale iyo ragga khatartaha ee yacni kubaddani soo maray ee khatartaha waxay u wajahayaan oo ay ku saadaalinayaan kulankani in Liverpool ay markaasi yacni meel iska saari doonto kuwan la yidhaahdo Liverpool ee dhahaya we will never walk alone yacni dhahaya baanu la yaabanay leeyihiin okay marka waanu arki doonaa bal kulankaasi soo noqdo kolleyba dhanka kaletana Mbappe waxaa la leeyahay waxaa la rajeynaya in kulankan uu kasoo qayb noqon doono oo uu ka muuqan doono Neymarna kulankani waa u diyaar laakiinse tan iyo cunuganiisi u soo baxayba yaa wiilkan yarkaa Mbappe la yidhaahdo Neymar warkiisi waa yaraadayba ilaahay amarkii badanaa yaa Barcelona wuxuu kaga tegay ninka Neymar la yidhaahdo bal ninka la yidhahdo Messi dartiisu kaga tegayo yacni waa sida lagu sheego oo dadka waaweyn ay markay saadaalinayaan ama ay ka hadlayaan bay ku sheegaan wuxuu leeyahay ninka waa nin laacib ah oo khatar ah waxyaabaha uu gaaro iyo waxyaabaha uu qabto waxaa loo saadaalinayaa oo loo diiwaangeliyaa ninka la yidhahdo Messi inuu sameeyey taasina isaga ma farxad gelinayso waana sababta uu markaas u aaday kooxda PSG waa kan weli yaro dhaga gaagaaban oo gaaban buu soo ordaya ayaa haddana kooxdii kusoo biiray magacii oo dhan ba kala wareegay marka waxa la leeyahay ninka ugu khatarta badan yacni kooxda yacni Borussia Dortmund ay ka hor imaan karaa waa ninkaasaa la leeyahay Mbappe ah Neymarna halistiisa waa wataa laakiin halista ugu badan Mbappe ayaa ka imaan kartaa baa la leeyahay okay dhan kalena Borussia Dortmund waad ogsoon tahay oo labadii gool oo yacni goolka Neymar uu dhaliyey waxaa ka daba keenay ninka Haaland baa ka dimi yimid wiilkaasuna dabeecadiisu waxay tahay wiilkaasna dabeecadiisu waxayba tahayba in uu markaasi goolasha saa iskaga daadiyo oo goolasha saa u dhaliyo war ninkan caadiga wiilkan yarka caadi maaha ka war Haalandka la yidhaahdo waayahay bal haddaanu fiirino dhankaasi suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddaanu fiirino wargeysyada waaweyn ee dunida ayaa maalin walba soo bandhiga xogihii ugu dambeeyey suuqa dhaqdhaqaaqyada iyo kooxaha iyo hadalhaynta iyo xanta ka jirta suuqa kala iibsiga waxaana markaasi maanta anu halkan idinkugu soo gudbinayaa wararkii maanta ee markaasi arbacaha ay qoreen warbaahintu Atlantico Madrid waxay markaasi xiiseynaysaa waryahanka Arsenal ee Alexander Lacazette oo 28 sano jira waxayna rabtaa inay xagaaga ay la siixato Mundo Deportivo yaa waayahay kuwaas baa doonaya inay markaasi sameeyaanoo waa ka Barcelona ayaana markaasi bartilmaameedkeeda labaad ka dhigatay waryahanka RB Leipzig ee xulka Germany ee Tim Werner oo 24 sano jira wuxuuna markaasi ka dambeeyaa waryahanka Inter Milan ee markaasi Argentina waliba Lautaro Martinez oo 22 sano jira warbixintaasna waxaa qortay Mundo Deportivo ayaa warbixinta qortay Barcelona waxay markaasi bartilmaameedkeeda labaad ka dhiganaysaa saan kuu sheegayba ninka la Tim Werner tobabarihii hore Manchester United Sir Alex Ferguson ayaana markaasi isku dayaya in kooxdiisu ay uu ka caawiyo saxiixa ninka la yidhahdo Birmingham oo markaasi Birmingham u ciyaara Chad Birmingham weeyaanoo waryaaninku magacada ka kaasoo da'diisu 16 sano jir waalidna uu markaasi waalidiinna uu markaasi kala kulmay war ilaahay habarkiiba oo markaasi kala kulmay xarunta tababarka ee Isniintii waa kaasoo shalay buu kula kulmay Liverpool waxay rajeynaysaa inay heshiis la geli doonto 17 sano jirka Real Belgium ninka la yidhahdo Jeremy Doku ninka la yidhahdo ayay markaasi doonaysaayo heshiis waxay rajeynaysaa inay heshiis la gasho laacibka Chelsea ninka la yidhahdo Batshuayi ayaana 26 sano jira ayaana markaasi ku biiri karaya Crystal Palace isagoona doonaya inuu boos joogto ah ka helo kooxda ee London ka dhisan waana warbixintaasi qoraysa Star Real Madrid ayaa lagu soo warramaya inay rajeynayso inay sanadkii sidaan ay ku bedesho tobabarihii hore ee Tottenham Mauricio Pochettino ama macalinka hore ee Juventus Massimiliano Allegri waa ka wariyaha kubaddu markaasi malaya respect male xushmadna male haddii xushmad iyo respect leedahay waa ka sanadkii sidaan baa la xushmayn lahaa Arsenal waxay ku mashquulsan tahay sidii ay markaasi u qancin lahayd Bukayo Saka oo 18 sano jira inuu u saxo heshiis waqti dheer ah xilli ay Manchester United xiisaynayso waan arki doonaa wixii markaasi ku soo cusboonaada miyaanu markaasi wicitaan u samaynaa waayahay dhegeysta waxaad naga soo wici kartaa lamarkuu furuhu 9 ayaad naga soo wici kardhaa waxaadna ka qayb qaadan kartaa barnaamijka adigoo ka hadlaya bal kulankana weyn ee Atlantico Madrid iyo kulanka yacni waxa weeyaan Liverpool caawa bal fikradaadu maxay tahay kulankani Hello السلام عليكم وعليكم السلام صاحب كسر دو برنامجك فلاقينتا ciyaaraha radio wal magacaaga meesha naga soo wacayso علي حافظ أرسل سيد علي wala socotaa barnaamijka okay galabta caawa waxaa jira kulan weyn oo khatar ah oo nimanka waaweynay caawa ciyaarayaan yaad isleedahay caawa u badanayaa ma Atlantico Madrid mise Liverpool أنا تاجر برشلونة وليفربول okay caawa yaad markaa isleedahay caawa waa leedahay oo Atlantico Madrid oo madaxa adkeyd ba caawa leedahay maxaa rajaynaysaa إن شاء الله وقت صباحنا صار لبي هالما صباحنا
waayahay waa sidaad u rajaynayso laakiin wax waa isbedeli karaanoo yacni sidaad u malaynayso waa iska bedeli karaanba wax kasoo isbedeli karaan waa kubada laakiin waa kubadana insha allah waan arki doonaa waxay xaaladdu noqoto waad mahadsantahay saaxiib sida quruxda badan oo qayb qaadatay barnaamijkan waan kaaga mahad celinayaa wuxuu aa dhegeystiyi ugu horreeyay barnaamijka ka qayb qaata waxaad naga soo wagi kartaa lambarka furuud 9 yahay 21 26 bal dhegeystaha xiga ee barnaamijka halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat saaxiib ku soo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meeshaa naga soo wacayso waaada saaxib macna arseed saaxiib gudaha ugal barnaamijka caawa waad arkaysaayo kulan weyn baa jiro khatar ah yaad rajaynaysaa caawa inuu guulaysan karayo waa liverpool iyo atlantico madrid atlantico madrid baa rajaynaysaa inay soo baxo atlanticaad rajaynaysaa caawa inay soo baxayso nimanku hadda gelayaan soo marka atlantico soo baxay nimanku hadda liverpool waxay joogtaa anfield bay joogtaayo raggiina waa u dhamaystiran yahay xataa hendersonka waa soo laabtay marka see wax ku wada walaalkiiw nimanka waayahan waa ku socota guldaro waa ujeedi saaxib macana lagama badan lagu hayeen laakiin waayahan waa arkaysa saaxib wad walba xitaa ka fadhiisay laakiin waxaa loo saadaalinaya laakiin waxaa loo saadaalinaya kabtanka loo saadaalinaya inuu maqnaa ya hendersonki waana soo laabtay si ay noqoto saaxib nimankaa jimcadda wata maaragta ayaga laftikooda rag baa usoo laabtay oo iyaga koosta iyo john phillips iyo rag baa jooga marka waa la rajaynaya inay badiya caawiye iyo rag baa loo soo laabtay o waa sax weeyaan waad mahadsantahay saaxiib waan kaaga mahadcelinayaa sidaa quruxda badan oo qayb qaadatay barnaamijka waa runtiisba yaa jeekoosta iyo ninka la yihahdo felix iyo akhyaartii oo meesha waa ku diyaarsan yihin bal anu aragna caaw waxay sameeyaan bal dhegeystaha ugu sii dandambeeyey barnaamijka halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib kusoo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo wacayso maasha allah saaxiib magaciigu waa master mahad waxaan kaa soo wacaya xaafadda october kusoo dhawo hadda barnaamijka caawa raggii waaweynaa baa wada ciyaaraya kuwiina madaxaadka kuwii kalena ay dhahayeen never walk alone so maxaad u rajaynaysaa caawa maxaad u rajaynaysaa kooxda dhocilaha liverpool in la garaaca rabaa kooxdaas makarad caawa atlantic madrid waxaa rabaa si caawiraa ku badayso ayadoo ognahay in liverpool ciyaartida u dhamaystiran yahay garoonka afil la joogo haye marka waxaan doonaa kooxdaas waxay noqotay kooxda sanadkan dhocilaha marka waxaan rabnaa in aad loo garaaco oo liverpool waxaad u rajaynaysaa in maradu ka dhacdo si fiican loo galo si fiican loo gado cawska anfield la cunsiyaa rajayna caawa waanu arki doonaa bal kolley meeshu waa meeshii barcelona ku weerartay weeyaan oo ay indhaha ku taageen oo wiilka yarka xataa arnoolka uu saa ku sameeyey marka amay maradu caawa kaga dhacda atlantic laftirkada caawa aad sheegayso waliyo way caawa wartay inay marada ka dhaca atlantic ma rajaynayno barcelona saa ogeed basanadan waxay ahayd koox laciifa oo arkaysa haweenka dhaweyta el clasico sida loo galay haye marka waxaan rajaynaynaa koleytaba caawata anfield inay ka dhacdo wacdaro weyn wacdaraadna waxaan rajaynayna inay dhigto kooxda atlantica war saxib waa mahadsanta aad waa mahadsanta waan kaaga mahadcelinaya sidaa quruxda badan oo qayb qaadatay barnaamijka waan kaaga mahadcelinaya wuxuu leeyahay war nimanka liverpool yidhaahdo caawa si fiican in loo gala rabaa buu leeyahay dhegeystahaasi ugu dambeeyey barnaamijka waa kaa waayahay barnaamijkii baan inta kusoo gabagabaynaynaa balaanu aragna liverpool iyo atlantic madrid caawa waxay ku kala baxaan baan arki doonaa yuusuf cabdiraxmaan oteso ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka soosaarihii waa yuusuf bashiir nadara iyo ninka yani barnaamijka farsameynayana waa ilaad aadan tan iyo kulanteena dambe saaxib yaal nabadgelyo